ugu yaraan 3 qof oo midkood askari yahay ayaa lagu dilay 6 askari oo uu ku jira taliye ciidanna waa ay ku dhaawacmeen kadib 2 qarax oo galinkii dambe maanta ka dhacay bar control oo ku taala degmada Balcad dhawaqa qaraxa koowaad oo laga maqlay guud ahaan magaalada sida ay sheegeen goobjoogayaal qaraxa koowaad waxa ku dhintay 2 dhalinyaro oo ciidanka la joogay qaraxa labaadna waxa uu dhacay kadib markii dad badan ay ku soo xoomeen goobta 6 askari oo qaarkood dhaawacyadooda culus yihiin ayaa Muqdisho loo qaaday si loogu soo daweeyo sidaas waxa VOA u sheegay ila wareedyo diiday in magacooda la sheego ilaa haatan ma jirto cid sheegtay mas'uuliyadda weerarkan maalintii shalay ayaa qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay deegaanka la foole waxa ku dhintay 5 qof oo ay ku jiraan shaqaale u dhashay Turkiga oo waday dhismaha jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye dawladda Turkiga iyo tan Soomaaliya ayaa labaduba cambaareeyay weerarkaas oo ay sheegteen maleeshiyada Al-Shabaab